waxaad ii sheegtaa nebiga marka uu geeriyooday ee adduunyadoo dhan ku sigatay in uu ilaahay rogo. gabar ayaa hadda ka hor u timid boqorrada ka mid ah, markaasay ku tiri waxaan doonayaa inaan isguursanno. markaasuu yidhi waayahay, haddaba ii sug aan soo weydiiyey nebiga ilaahay haddii aan isguursan karno iyo haddii kale. sababtoo ah waxbay u ahayd eedo ama habaryar, waxbay u ahayd. markaasuu yidhi boqorka nebigaan soo weydiinayay. boqorkii markuu nebiga u tagay ayuu ku yidhi nebiyow ma ii bannaan tahay inaan qoftaas guursado, waan isdoonanaayay. markaasuu nebiga yidhi may, xaaraan bay kaa tahay, maxramkaagay ka mid tahay, ma guursan kartid. kadib boqorkii gabadhii ayuu u soo laabtay oo uu u sheegay inaysan isguursan karin oo ay maxramkiisii ka mid tahay. way baxday, hooyadeeday u sheegtay sheekada. hooyadii ayaa gabadhii waxay ku tiri inta isqurxisid u tag bay tiri boqorka, kadibna markuu ku damco waxaad ku tiraahdaa ha ii soo dhowaa. haddii aad doonaysid inaad ii soo dhowaatid shardigayga waa inaad ii fulisaa. sidii bay samaysay, hadalkii bay ku tiri boqorkii. markii buu yidhi waa maxay shardigaaga? shardigaygu waa in aad soo dishaa nebigan diiday inaan isguursanno. markaas ciidankiisiibuu amar wuxuu ku siiyey in ay soo dilaan nebigii oo ay madaxiisana u keenaan isla waqtigaas. ciidankii baa booday oo nebigii dul tegay asagoo tukanaya, markaasay kurka ka jareen. kadibna boqorkii bay u geeyeen. nebigii calayhi salaatu wasalaam markii madaxa laga soo gooyey kadibna loo keenay boqorkii, uu arkay in la soo dilay nebigii oo ay gabadhiina aragtay sidoo kale, ayuu ilaahay sabca samaawaadka wuxuu amar ka soo bixiyey in dhulku uu dilaaco, dhulku uu gariiro marka koowaad, kadibna uu dilaaco, kadibna uu liqo gabadhaas. gabadha darteeda nebiga loo dilay inuu dhulka uu liqo. gabadhii oo uu dhulku liqayo ayuu boqorkii intuu seeftiisii la soo booday ayuu korka ka jaray si uu ula haro intaas sare oo keliya, madaxeeda keliya si uu ula haro. boqorkii agtiisa waxaa yaal madaxii naagta iyo madaxii nebiga. haddaba waxaad ii sheegtaa nebigaas magaciisa calayhi salaatu wassalaam. anigaa kuu sheegay nebi yaxyuu ahaa calayhi salaatu wassalaam.